muqdisho waxaa laga furay goobo loo cayimay baaxadsiinta iyo bilicsiinta jirka, biingadaynta wejiga, bararinta dibnaha, buuxinta horaadada, weynaynta kubabka iyo buurnaysiinta bogcadaha dambe ee dumarka. Gabdho doonaya in loo barariyo faruuryaha, camanka, kubabka, horaadada iyo meelo kale oo ka hadalkoodu xasaasiyad leeyihiin ayaa iska diiwaan geliyay xarumaha baaxadsiinta ee Al-Furaad iyo Obesity Center oo ku yaal jidka ugu caansan magaalada Muqdisho ee Maka Al-Mukarrama. Haweenku waxay door bidayaan inay weynaystaan xubnaha ilqabad kale ee ay gayaankoodu ku xulan karaan. Waxa lagu durayaa dheecaano abuuraya xaddi baruur ah oo qaabkooda ka dhigaya kuwa cayilan oo soo jiidasho leh. Waxay kaloo marayaan qaliinka unugyada jilicsan oo qayb ka ah qaliinka caaga ah ee dib u qurxinta jirka. Waxa lagu baraarugay muuqaal ay soo duubtay YouTuberada Maama Malyuun oo dhowaan safar ku timi Muqdisho, taasoo sheegtay in loo yeelay waji u dhalaalaya sida gabar 15 jir ah. Waxay u muuqataa in Soomaaliya reer galbeedku ay u soo waarideen dhaqamo lagu bedelayo abuurta Ilaahay oo Quraankiisa ku sheegay inuu bini'aadamka u abuuray sidii ugu quruxda badnayd. Waagii hore lama jeclayn dibnaha burburan, inkastoo reer galbeedku ay aad u duranayeen sanadahan dambe. waxaase muunad u yeelay tartanka 100 gabdhood ee ugu quruxda badan adduunka ee TC Keller, Taylin Balandow, iyadoo 6 jira waxay ku guuleysatay gabadha adduunka ugu quruxda badan. Waxa la fajacay indhaheeda buluug dhalaalka ah, timaheeda cad iyo sankeeda dheer. Markii labaad ayay sanadkii 2018 difaacatay quruxda adduunka. waxaase daaqada kala baxday sanadkan yeel shilbiya gabadha reer Israa'iil oo kaga adkaatay faruuryaha ay soo duratay darteed. Gustavo Sanfanero Rosali waa ninka laga soo gaaray qaliinka caaga ee casriga ah, wiil yar oo Talyaani ah oo ku soo barbaaray Sofana, Faransiiska ku soo bartay qaliinka dhagaha sanka iyo dhuunta. Dagaalkii labaad ee adduunka 1939 ayuu go'aansaday inuu xal u helo dhaawacyadii wajiga ka burburay muddadii uu duulaanku socday. Isaga oo uu heliyo dhakhtar Belgium ah ayaa asaasay Italia Plastica Chirurgica oo ahaa cusbitaalkii ugu horeeyay ee qurxinta wajiga fuliya. Wixii ka dambeeyay 1950kii, atarishooyinka Talyaaniga ayaa ku dhiiraday inay jirkooda qurxiyaan iyagoon dhaawac qabin, waxayna caadi ka noqotay Yurub, Ameerika ilaa iyo galbeedka Aasiya. taariikhyahanada ayaa Gustavo Sanfanero Rosali waxay ku tilmaameen in cilmigiisa uga faa'iideeyay boqolaal jiil. Angelina Jolie, Kim Kardashian iyo Anna Faris ayaa ka mid ah gabdhaha ugu caansan caalamka ee qaliinka ku sameeyay dibnahooda si ay u qurux badnaadaan. Diinta Islaamku ma ogola in wax laga bedelo abuurista Ilaahay haddii aysan jirin baahi daruuri ah oo caafimaadku ugu muhiimsan yahay. Laakiin dadka aan ku qanacsanayn sida Ilaahay u abuuray ee jirkooda qaliinka ku sameeya ayaa ah kuwa aan la mahadin. Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya oo ka jawaabayay mas'alo diini ah oo laga weydiiyay qaliinka lagu sameeyo jirka, waxa uu sheegay inay xaaraan tahay amaliyad kasta oo qurux lagu doonayo. Wuxuu kaloo tilmaamay inay ka imanayso caro Ilaahay. Dhakhaatiirta Muqdisho ka furtay goobaha baaxadsiinta iyo bilicsiinta jirka ayaa ku dooday inay ka duulayaan rabitaanka bulshada oo u hamuun qabta qurxinta jirka. Waxay kaloo sheegeen in qaliinkani uu aad u fudud yahay oo uusan lahayn ragaad dambe oo caafimaad. Ragga ayaa ka mid ah dadka wajiga loo qurxiyay ee xarumahani ay qaabileen, laakiin waxa la ogaaday inay gabdho soo buux dhaafiyeen buugga diiwaangelinta macaamiisha. Lacago badan ayaa laga qaadayaa qof walba oo doonaya inuu jirkiisa wax ka bedelo.